Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan idin wada salaamayaa Soomaali meel kasta ay joogto iyo meel kasta oo iga dhageysanaysaan. Insha Allah Ilaahay waxaan ka rajeynayaa inaan ku caafimaad qabtaan. Maanta haddii Ilaahay yiraahdo waxaan doonayaa inaan ka yara hadlo marka ay dumarka iyo ragga kala tagaan. Markasto social media meelaha waxaan ku arkayaa gabadh Soomaalida baa la xumeeyay, nin baa xumeeyay, raggii Soomaalida oo dhan waa wada xun yihiin. Horta rag iyo dumarba dhinac kastaba way inagu jirtaa dad wanaagsanayn, raggana way ku jirtaa, dumarkana way ku jirtaa. Laakiin waxaad ogaataa markan horta hore ninbaa maxay ilaaha ku keenay ninkan calafkaagu noqday xilligaa inay isguursataan. Maxay ahayd maalintii lagu guursanayay alxamdulillah maasha Allah ayaad haysay maadaama oo calafkaagii ilaahay ku keenay. Laakiin haddana maalinta lagu furana horta furitaanka ilaahay uu necab yahay waanu soo dejiyay. Dee sabab badan baan u soo dejiyay dadka oo isfahmi waayaan oo meeshii aad ku dhibaatootid ama aad dhib badan ku marayso inaad dee iskaga tagto diintu way banaysay. Laakiin markii u horeysay aad ku guursanayay alxamdulillah baad haysay. Imika marka lagu furana waa inaad tiraahdo alxamdulillah because waxaad ogaataa labada dhinacba furitaanka iyo guurka horeba labadaba ilaahay baa keenay. Waa lagu qoray waqtiga inaad guursatid waana qorneed inaad waqtiga kala tagtaan. Ma fahanti? Marka hore ee lagu guursanayay alxamdulillah daas haysay maasha Allah. Waa inaad tiraahdo the same thing marka lagu furano. Because wax kasta way qoran yihiin adduunkan wax oo maaragtay dhammaystiran oo maaragtay dee nafteena oo dee nolosha daahaya way jirtaa dad ilaahay isu barakeeyay oo dee isku raaga waana u ducaynayna ilaahay intaa in ka badan baha ugu sii daro. Laakiin maxay ahayd dee dad kala tagayoo maxay ahayd waqtigooda dhamaadayna way jirtaa. Marka adigu markastaba ama furtaan ha noqoto ama guur ha noqoto wax kasto ilaahay markaa kuu keenay inaad ku xamdid weeyaan. Haddaynu Soomaalina ama ibni aadankeena oo dhan inta badan dadka maaragtay waxaynu faraxnaa ama ducaynaa ama maxay ahayd marka wax wanaagsan inoo dhacaan. Bata xunna ilaahay baa keenay adduunkanna laguma waarayo. Waxa laga yaabaa way xun tahay doo dhib baad maraysaa oo qof dhan oo dee isguursateen ama carruur baaba isku leedihiin ba ayaa kala tagteen oo kale xanuun way leedahay. Laakiin haddana the same time maxay ahayd ninkan ka hor waa nooleyd gadaashiisana waa noolaanay. Hablaheena maasha Allah Soomaalidu waa hooyooyin fiican waaye. Adag inta hooyin baa socoto wax qabanaysa oo ku dhex jirta. Maxay ahayd ubadkii maxay ahayd kuwii single mother-ka ah iyo kuwii ragga lahaaba inta badan lama kala garanayo sababta tahay hooyin baa markasta wax wada. Laakiin markay noqoto maxay ahayd nin iga tagay iyo I feel like inay dumarkeenu u jilicsan yihiin. Maxay ahayd taas horta waxaad ogaataa adduunka ma tihid Soomaalida dumarkoodu ma aha dumarkii u horeeyay ee laga tagay. Adduunka inta way ka dhacaysaa gaal bay ka dhacaysaa muslimka kale ka dhacaysaa waynaan arkin. Laakiin gabadh Soomaaliyeed gabadh la furay uguma horeynin weligeedna way jirtay adiga ka bacdina way jiraysaa. Laakiin marka horta walaahi qofka hadii dee beginning-ka maaragtay guurka labada qof anigu waxaan odhan lahaa isu dulqaata. Maxay ahayd intaad dee wax sixi kartid bal wax sax because ma fiicna family-gu inuu burburo. Laakiin haddana Soomaalida waxay tiraa silic ku nool 30 guursataa dhaanta. Anigu 30 guursadeedin ma odhanayo. Maxay ahayd guurka inta halkaagaad wadi karto aad wado way wanaagsan tahay dulqaadashada iyo bal xitaa haddii doono separation inta la kala yara qaato bal qofba dhinaciisa usoo fikiro oo laga hadlo way wanaagsan tahay oo imka divorce iyo dhibkii badnaa ayaa nagu batay kaas dulqaadashadii baa yaraatay. Laakiin haddana dee wax kasta adigu haddaad wanaajiso oo ninkii ku rabin ama uu tagayo albaabka u fur ha baxo kaas qofkan hortiina waa nooleed gadaashiisana waa noolaanay. Laakiin waa inaad taa aamisnaatid. waa wax xanuun badan carruur baa wax laga yaabaa inay meeshii taalo. Laakiin carruurta xitaa meestaa baa ku dhacaya markasta hooyadii aabiyo haysta arkayaan. Maxay ahayd problemkii inta in ka badan baa usoo jiidaysaan laba qof waxa la qaatay
dabadda intay kala maraan deetana ubadkooda isla korsadaa maxay ahayd waa laga yaabaa horta raggeena badankoodu marka gabadha ay furaan ilmahana way fureen taana way ku khaldan yihiin oo maxay ahayd horta walaahi ragga badankoodu dee waalid single mother baa badankooda raggii soo korisay single mother markay soo korisayna ninnimo ilaahay ninunbuu ka dhigo halkan uu taagan yahay oo waxaad u malaysan marka laga taagay inuu nin yahay laakiin waxa yacni si family loo dhaqdo iyo dulqaadasho iyo wanaag intooda badan ma yaqaanaan sababta tahay may soo aragba aaba soo koriyo oo hooyadii u wanaagsan oo wanaag iyo sharaf guri wanaagsan oo degan kumuu soo korin marka wax maba badankoodu ma garanayaan waxay family sida loo dhaqdo balaakiin at the same time adiga hawlkuu taalo ma aha hadduu ninkii ku furo ku yidhi waan tegay ama maxayda kuma rabo walaale albaabka u fur albaabka markaa u furtana dhexda xiro ma fahanti haddii lagu furay feedhmo ku jabayso waad noolaanaysaa intaad dhexda xidhatid oo is adkaysid caafimaadkaaga iyo carruurtaada caafimaadkooda ka tali social media intaad soo fadhiisato maxay halkaa kasoo barooratid dumarkeena soomaalidina badankooda iyaguna been bay isugu sii sheekeeyaan haddaa is leedahay dee been maxay aheeday anigu intay taalkayga ama fikradayda aban ka hadlayaa haddii ood maaragtay adee runta ku dhibaysana cajaladeeda waa iska damin kartaa waa iska socon kartaa because badanka dadkeenu way isku been bay isugu wada harwacdaan gabadh baa halkan ma garanayaan waxaa jirta rag badanoo iyagaba la xumeeyey balaakiin social media kuma aragno halkaa ma soo fadhiistaano maydhaa gabadheediba ay xumaysay marka dhinac kastaba way ku jiraan dad khaldan rag iyo dumarba marka laakiin adiga hawl kuu taala maaha intaad adigu dhexdaada xiratid bal adigu marka hore isjeclow adigu marka hore bal is ilaali caafimaadkaaga marka hore iyo caafimaadka carruurtaada ka tali nin soomaaliya oo iska tegay waxaa laga yaabaa marka horeba benefit badan kumaad qabin hooyooyinkii iyagoo raggii kuwii haystaan kuwii aan haysanana ma haystaan kuwii haystaana single mother bay u dhaqmayaan oo ninka waxba lama qabanayo ma caawinayo familigii kuma tirsana marka maxay ahayd kolley wax badan kuumu taraynine anigu dad isqaba waxaan odhan lahaa inta itaalkiina dadaalo oo sidaa reerkiina u dhisan lahaydeen bal ka taliya balaakiin ninka hadduu ku dhaco oo ku naco ku yidho waan tegay albaabka walaalay u fur ha ku dhegdhegin qofna noloshaada inaad ku khasabtid ood sanka iska gelisid waa laga qurux badan yahay marka dumarkeena sida kale waa u adadag yihiin maasha allah carruurtu waa u fiican yihiin intaaba inagu dumarunbaa socdo oo wax qabanayo wax dhisayo oo wax wada balaakiin markay nin noqoto jilaaca badan iyo baroorta badan iyo ninka waxa keliya aad kaga aari kartaa hadduu markuu kaa tago banaankaa maro intaad dhexda xirato naftaadana qurux badnaato carruurtaadana qurux badnaadaan waxaa laga yaabaa inuu ka shallaayo israado walaayti marka ka tagto aba sii qurux badataybo laakiin adigoo aad moodo habar waala lagu malay haddaad social media soo fadhiisatid wuxuu leeyahay alxamdulilah rabbilcaalamiin tan goor horu ilaahay iga wada ma fahanti marka jaanis uu kuugu sii digdigto uu kuugu sii joogsado ha siinin carruurtaada korso caafimaadkaaga ka tali adigu isqurxi adigu isnadiifi adigu maskaxiyan caafimaadkaaga ka tali because qofna maxay aheeday adduunkan kuma raacayo adiga haddaad jeclayna dee ha filanin inuu nin kale ku jeclaado ama qof ibni aadana ku jeclaado nolosha ilaahay wuu soo rogay waqti bay leedahay wixii hadday kaa dhammaadaan dee alxamdulilah kor iyo hoos inaad ilaahay tirahdid weyn hore usii socotid inaad maxay aheeday ka daba barooratid oo ninba ay xumeeyey markasta waxaan arkayaa un dumar soomaaliya ninba ay xumeeyey ninba ay kaneeyey naag la xumeeyo ugumaad horreynina baayo ma fahanti gaal iyo muslim intaa adduunka naagaa la xumaynayaa balaakiin cidna intay social media soo fadhiistaan halkaa kama cabaadaan naftaada iyo carruurtaada waxba uma taraysid and don't forget maxay aheeday rag badan oo badanka raggu dee markay dumarka furaan carruurtana way furaan balaakiin xabad waxaa jirta iska fiicanoo carruurtooda raba haddii ay maaragtay kala tagteen inay korsadaan taana dumar badanoo u diidayaa jirto ku xumaynaya maadaama aniga iga tegay carruurteedana iyo arkin dee walaale adigu kaa tegay carruurtiisa kamu tegin marka xabadda yare iska fiicaneed rabta in ilmaheeda korsatana ha la maqnaado ha la soo wareejiyo ha kusoo dhaxaan habeenu meeshuu joogo may kuwu kula dhalay adigu keligaa maad dhalin hadduu adiga ku furayna carruurtii muu furay badanka rag way furaan soomaalida dumarka markay carruurta furaan markay dumarka ka tagaan carruurtana way ka tagaan
laakiin xabad xabad yaroo iska wanaagsan baa jirto xabad xabadda haddii ilaahay kugu soo hagaajiyo caruurtiisa sii adigii caruurta shaqo relationshipka idinka dhexeeya iyo ta caruurtiisa iyo isaga ka dhexeeya shaqo iskuma laha waxyaaba badan baa dadkeena iskaga khaldan waaba inta badan ma rabaanba inay kula koriyaan laakiin xabad xabadda wanaagsan ee rabta caruurtiisa inay dusha ka eegato sii adigana ilaahay naag buu kaa dhig intaad dhexda xidhatid maxay shaydaanka iska naartid alxamdulilah tiraahdid dabeetana hore u soco nin kalena ha isku tuurin nasto because waa ka guur maa la dhihi jiro qanjoo guur kii aad ka caratay un weeyaan kuwa nimanka maxay heeday suuqa ordayaana naftaada iyo caruurtaada waqti sii shaydaanka iska naar wax kastaa way qoran yihiin inaad guursatana ilaahay wuu qoray inaad ninkan kala tagtaana ilaahay wuu qoray marka intaad shaydaanka iska naarto istaji oo maxay aheeday acuudu bilayso alxamdulilah dhe koryo hoos waan idin wada salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu